السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وان السلامي ما شاء الله. ما أنت وحنا سميسان إن هدي الله إدمو ألعبتي وجهك تايتن كده كان لهيد لايتنينج يو وايتنينج في عنه سينس ما شاء الله. halkan waxa igu jira waa leen dhanaan aan soo miray xogaa yar oo leen dhanaan ah halkan igu jira. Marka leenta waxaan ku darsanaynaa aloe vera pure aloe vera waa gel 197.7 ما شاء الله. وعلاب aad u fiican weeye. Tighting wajiga ka dhigaya sagging skin. marka alaabtaan ku darsanaynaa oo liin halkan waxa igu jirta alaabtaan ku daraya biidni raxmaan. ما شاء الله. marka alaabtaan waxa weeye wajiga duduubka iyo waxyaabahaas dhan ka baabina. leentana waa cadeen oo ku cadeynaya ما شاء الله. alaabtaan marka waxaad isticmaalaysaa biidni raxmaan waxaa soo qaadanaysaa suuf ileen gacan ma isticmaalaysa. alaabtaan waa iska biyo camal weeye. waa leentii iyo aloe vera weeye. aloe vera gel weeye. aloe vera waa bahalkan weeye ما شاء الله. waa iyadoo diyaarsan waana pure weeye baashaan ما شاء الله. marka alaabtaan waxaa sameynaysaa suufaad qaadanaysaa. suufkaana kaleetaa soo iibsanaysaa. suufkaana soo iibsanaysaa. waxaad sameynaysaa markaa sidaas oo kale isku qastid leentii iyo aloe verada isku qastid maaragtay. waxaa sameynaysaa biidni raxmaan suufkaana qaadanaysaa saana u dhexgelinaysaa. markaa sidaa u dhexgelisid wajigaad marinaysaa 10 daqiiqo ama adigu wajiga marka kuu qalo dareentay qalleer wajigaaga kuu noqday waa iska dhaqaysaa. daldalaal yar oo qurux badan iyo wajigaaga muxuu ahaa duduubka dhanka baabi'inaya biidni raxmaan. waa alaab ما شاء الله weeye. tijaabiya waad ogaan doontaan natiijadaad ka heli doontaan ما شاء الله weeye. aloe verada waa aad u fiican tahay. timaha u fiican tahay. wajigaa la marsadaa. leentana kaba sii daranba. leenta waxyaabo badan baa lagu darsadaa. waxa way daldalaal yar buu leeyahay ما شاء الله. qurux markaad marsatid biidni raxmaan aloe vera iyo waxaa isku marsanaysaa leen dhanaanta kaala iska arag ما شاء الله. marka waxyaabahan oo kale isticmaala oo gurigiina sameysta إن شاء الله. waa inta jikada ku jirta 5 daqiiqo bacdina waxaa kuu qalalayaa biidni raxmaan. natiijo fiicanna waad ka helaysaa haddii alla idmo. isku dadaala إن شاء الله. khayr badan baa idin rajeynayaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.